waxaa igu soo dhacday fikrad taas oo ah inaan kala saaro kan nafsadayda jecel iyo kan quruxdayda oo keliya doonaya. Aabbahay ayaan u sheegay, aabba waxaan isku ognahay inaan dhammaantood imtixaan ka qaado, kii ku guulaysta imtixaankaasna wuu i guursan doono. Wuu igu raacay, waana fikrad fiican ayuu i dhahay. Aniyo aabba waxaan isku ogaanay inay labada keliyood i fadhiisteen, kii diyaar u ah inuu ii bixiyo labadiisa keliyood mid ka mid ah uu imtixaanka ku guulaysan doono. Waxaan soo iibsaday faleebooyin iyo irbado aan ku xidho gacanta. Suuqana waxaan geliyey war aan jirin iyo inay keliyuhu i fadhiisteen oo ay shaqayn waayeen. Qaar baa ka war helay inaan xanuunsanahay, way soo kala ordeen si ay ii soo booqdaan, isagoo mid kastaa ku xisaabtamayo inuu noqdo kan ugu horreeya ee i soo gaadha. Markuu mid guriga soo garaacaba waxaan u ordaa xagga sariirta, kadib asxaabtayda qaaliga ah oo ii ahayd sirta noloshayda ayaa maryaha igu didi jiray, daawooyinkana i soo agdhigi jiray. Waxaan waayey mid ka mid ah oo i dhaha waxaan kuu bixinayaa mid ka mida keliyahayga. Dhagahayguna aad bay ugu xiiso qabeen ereyada noocaas ah. Hase ahaatee kuwii ugu wanaagsanaa waxay i dhaheen keli lama waayayo, waanu kuu iibin doonaa. Iskaba daayo kuwii kale igumaba soo laaban. Maalin maalmaha ka mid ah nin waardiye guriga ka ahaa, isla markaasna waraabinayay ubaxyada guriga, ayay bannaanka isku arkeen saaxiibtay. Wuxuuna weydiiyey, xaggee aaday saaxiibtaa, maalmahan ma arage? Waxay uga faallootay xaaladayda iyo inaan xanuunsanahay. Asagoo ordaya ayuu soo garaacay albaabka. Kadib markuu soo galay ayaan iswaraysanay waxaan xanuunka aan la dul saaranahay sariirta. Wuu iga naxay runtii, wuxuuna i dhahay xal ma loo heli karaa? Waxaan dhahay haa, haddii aan helo qof ii baxsho labadiisa keliyood mid ka mid ah waan caafimaadayaa. Wuxuu dhahay aniga ayaa diyaar u ah inaan kuu baxsho. Waxaan weydiiyey sababta uu iigu bixinayo. Wuxuu ii sheegay inuu i jecel yahay, balse ay dantu ciishay. Waxaan ku dhahay hadday saas tahay 2 beri kadib igu soo noqo oo ii imow, anna waxaan sii diyaarinayaa dhakhtarkii kugu samayn lahaa qalliinka. Haye ayuu dhahay, wuuna iska baxay. Aabbahay ayaan u sheegay inuu qof ku guulaystay imtixaankii, laakiin maan u faahfaahin. Waxaa la diyaariyey xafladdii meherkayga, isagoo dhakhtarka qalliinka samaynayaana yahay kan ii meherin lahaa. Aabbahay ayaana soo wada, laakiin aabbahay yaab ayay ku noqotay markuu ogaaday ninka uu ii meherinayo inuu yahay waardiyihiisii. Waardiyihoo isna yaaban halkuu ka sugayey in qalliin lagu sameeyo ayaa dad hortood inta looga wacay la dhahay kaalay, adiga weeye caruuskuye. Kadib isaga oo tallaabadu dhibayso ayuu soo istaagay goobta meherka, waana laysu kaayo meheriyey. Wiilashii ku faani jiray lacagta iyo gawaadhida iyagoo indhahoodu togan yihiin oo midba ciil faruurta qaniisan yahay ayuu gabadhii quruxda badnayd calaf u yeeshay nin waardiye ah. Dabcan way ka dhex weyday raggaas mid iyada nafsadiisa u huraa, balse ugu dambayntii way heshay kay raadinaysay. Runtii aabbaheed wuu la yaabay go'aanka gabadhiisa uu dhalay. Waxay kaga raacday wiilashan wada hantiilaha ah ninkan waardiyaha. Ugu dambayntiina wuu ogaaday inay go'aankeeda ku saxsan tahay. Ninkeedii waardiyaha ahaana wuu dalacsiiyey, wuxuuna ka dhigay maamulaha shirkaddiisa. Jacaylka aad maqashay aan hadda ka hadlayno kuma xidhna lacag, qurux, mansab, laandheeranimo, balse waa isfahan iyo naxariis, isu dulqaadasho. Waxaanad ka dheegan kartaa runtii qisadan wax badan oo ay ku kala duwan yihiin ka ay maanta da'yarteenu aaminsan yihiin ee ku dhufo oo ka dhaqaaqda ah iyo ka uu magacu saxda ku yahay.